السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومهسنتهين أحد يصير معنا سنين ويسوق كوبي لباتنك بش أفراد سنة كلا بدو كن يأفري لباتنك مقالك إنه حرباينا نقهله قبل أيدا شيء إلهام عمر اللي بنادى الصومالي ده اللي قصوا دورته قبل كمينيسوتا أو كونغرس كأقل كوكيل ده أمريكان كوجرته قبل أيدا وقميصتي اللي حري أيال السوداء ورباحين تعيين لهذا الشيء وحيك هذا الشيء حلقي وقاتي إن كوليج كيدي برنارد كوليج لقى جوجيي sababta emailka loo soo diray oo san u cadeyn sababaha looga joojiyay iyo sidoo kalena waxa ay ka hadashay iyada iyo gabar kale oo iyaduna muslimada ah oo jaamacadda Columbia qeyn iyadana laga joojiyay waa la soo daayay labadoodaba waa la xiray inkastoo xilliga la soo daayay san shaacin maxay dalbanayaan waxyaabaha ay ardaydu dalbanayso jaamacadda ay ka dalbanayaan maxay yihiin ganaaxii laga ganaaxay jaamacadahoodana sidoo kale racfaan ma ka qaadanayaan arrimahaas oo idil ayay ka hadleen marka waxaan rabaa inaan idila socodsiiyo hadaladii ay wareysigii ay bixiyeen ay ku sheegeen haddaba gabadha ay dhashay Ilhaan Cumar ee Isra oo 22 jir ah waxay dhigataa college ka leedahay Barnard College oo ka tirsan farac ka tirsan jaamacadda Columbia ah iyada ka badan 100 arday ayaa qamiistii la xiray walow intooda badan la soo daayay laakiin maxkamad sugayaal ay yihiin waxa sidoo kale boolisku ay xaqiijiyeen magaalada New York in sababta ay u xireen ardadaasi ay tahay codsi ka yimid gudoomiyaha jaamacaddaasi oo la yiraahdo Nemat Shafiq oo iyadu tiri waxay ardaydan ay qatar muuqata ay ku hayaan oo waliba joogto ah arday ammaanka jaamacadda iyo waliba ardayda sida darteed ayay u dalbatay booliska oo loo xiray isla markaana duqa magaalada New York isaguna Mayor Eric Adams waa uu ka hadlay oo waxa uu yiri waan u baahanahay mudaharaad nabdoon laakiin mid qalalaasa wato uma baahna booliskuna waxay xaqiijiyeen mudaharaadkan inuusan wax qalalaasa uusan wadin wax dhaawacana aysan ka dhicin laakiin gudoomiyaha ay dalbatay teendooyinkaasi ardadu ay ka sameysteen jaamacadda banaankeeda in loo baahan yahay in meesha laga qaado isla markaana sidoo kalena meeshaasi la baneeyo walow hadda ardadu ay leeyihiin goobta mudaharaadka ay ku sameynayeen waxa la yiraahdaa liberated zone waa goobta xornimada ardadana loogu talagalay xitaa inay ku mudaharaadi karaan oo jaamacadda ay leedahay meel ay jaamacadda ugu talagashay in lagu mudaharaado ayay halkaasi ahayd marka Ilhaan Cumar gabadheeda Isra dadkii ama ardadii la xiray qamiistii ayay ku jirtay oo 100 kor u dhaafayay Isra waxa ay sheegtay sababta ay ku ogaatay in college-keedii Barnard College laga joojiyay in qamiistii 10kii subaxnimo ay email heshay oo lagu leeyahay jaamacaddii waa laga joojiyay xitaa qolkii aad seexanaysay waa la xiray jaamacaddana wax cunto ah kuma lehid waxayna sheegtay inaysan jirin sabab cad oo loo sheegay in looga joojiyay oon ka ahayn in ay dabeecado xun ay sameysay micnaheedu waxay tahay mudaharaadkii abaabulaysa oo ka qayb gashay waxay sidoo kale xaqiijisay in wax xadgudub oo aan sameeyay la iima sheegin ay tiri sidaa darteed waxaan u maleynayaa sababta laga xirtay aniga iyo labada arday oo kale oo college-kana laga joojiyay warbaahinta ayaan la hadalnay markaas warbaahinta markii laga arkay muuqaalkeena inaga oo hadlayna ayaana ku bartilmaameedsaday waxayna sidoo kale sheegtay waan ogeen qataraha ka iman karo waxyaabahan aan sameynayno sidaa darteedna shacabka Falastiiniyiinta ayaan isgarab taag u muujinayna ay tiri gabadha Isra oo Ilhaan ay dhashay waxay sidoo kale ay xaqiijisay in iyagu markii mudaharaadka ay sameynayeen ardayda kale ee Yahuuda oo jaamacadda dhigata iyaguna mudaharaad ay sameynayeen laakiin wax dhibaato ah loo geysanaynin oo la bartilmaameedsanayay kan Falastiiniyiinta lagu taageerayo oo ardayda muslimiinta iyo ardayda kale oo aan ahayn labaduba ay sameynayeen marka telefishinka MSNBC ayaa Isra ay wareysi siisay waxa sidoo kale la fadhiyay Maryam Alwan oo iyaduna ah gabar muslimada sidoo kale ciidamada Falastiiniyiinta lagu yaqaan ay garbaha ku wataan markii interviewga ay bixinayeen Maryam iyadana shalay ayaa jaamacadda Columbia laga joojiyay ardadii la xiray ayayna kamid ahayd oo halkaas mudaharaadka ama teendooyinka ka sameystay maalintii shanaad ayuu hadda mudaharaadkaasi galay jaamacadda banaankeeda ardadu ay ka sameysteen teendooyinka oo waliba waa uu sii kordhaya maalinta ka dambaysa waxay gabadha Ilhaan ay sheegtay inaysan wax qatar aysan sameeyeen oo mudaharaad nabdoon ay sameeyeen teendooyinkaasi ay banaanka jaamacadda ku sameysteen isla markaana ay heesayeen mararka qaar cuntooyin isla cunayeen si wada jir ay u tukanayeen mana jirin ay tiri wax qatar oo jaamacadda iyo waliba ardada jaamacadda dhigata aan ku haynay sidaa darteed mudaharaad nabdoon ayaan sameeynayna sidaasi ayaana la ku bartilmaameedsaday Maryam Alwan ayaa waxay sheegtay in jaamacaddan ay caan ku tahay in mudaharaadyada nabdoon lagu sameeyo xitaa dagaalkii Vietnam markii uu socday sanadkii 1968 mudaharaad ayaa jaamacaddaasi laga sameeyay 700 oo arday oo jaamacaddaasi ayaa la xiray ay tiri marka arrintan ma ahan mid hadda
ugu horeysa waxyaabaha waxay sheegeen marka in suspensionkii amaba ganaaxii laga ganaaxay jaamacadahooda oo laga joojiyey ay racfaan ka qaadan doonaan islamarkaana ay sugayaan hadda xilliga racfaankooda la dhageysan doono waxayna sheegeen markaasi kadib inay ka fikri doonaan in jaamacadda ay sharciga la tiigsadaan maadaama lagu xadgudbay waxayna xaqiijiyeen inay ku dadaalayaan sidii jaamacadahooda ay u dhammaystiraan hadda sanadkii saddexaad ayaa gabadha ilhaan ay ku jirtaa gabadhan kale Maryam Alwan sanadkii afraad ayay ku jirtaa waxayna sheegeen in ay jaamacaddu ku xadgudubtay sharciyada iyadoo ay samaysay sidaa darteed waxay dhaheen cadaaladda ay maxkamad ayaan la tiigsan doonaa laakiin marka hore waa inaan ogaanaa sababta ay tiri naloo ka joojiyey iyo wadada sharciga ah ee loo maray in jaamacaddeena aan sii wadano Maryam Alwan waxay sheegtay iyada in laga ganaaxay jaamacadda laakiin aan qolkii ay seexanaysay aan laga xirin islamarkaana cuntadii waa loo diiday sidoo kale arrintaas ayay sheegtay waxay sidoo kale sheegeen waxyaabaha ay dalbanayaan maxay yihiin ardadan mudaharaad ka sameynaysa waxaan dalbanayna waxay tiri saddex arrimood ayaan dalbanayna tiri gabadha Ilhaan Isra waxyaabahan dalbanayna waxa kamid ah in jaamacadda Columbia University ay joojiso taageerada ay siiso ururada ka qayb qaadanaya xasuuqa Israa'iil ay ka wado marinka Gaza ama Falastiiniyiinta ay xasuuqayso dhammaanba urur kasta ama company kasta ama hay'ad kasta oo ku lug leh lacagaha ay jaamacaddu siiso in ay gabi ahaanba joojiso waa qodobka koowaad oo dalbanayno kan labaad waxay tiri jaamacaddu waa inay transparency ay samaysaa oo ay cadaysaa lacagtaasi halka ay ku bixinayso isla markaana dadka shacabku dhammaan iyo ardaduba ay wada arki karaan maadaama lacagtii annagu aan bixinay waxaan u baahannahay halka jaamacadda ardadaas ama lacagtaas ay ku bixinayso inaan ogaano oo aysan ka qayb qaadan xasuuqa shacabka Falastiiniyiinta ay ku hayso dowladda Israa'iil tan kale waxa ay sheegeen oo saddexaad qodobka saddexaad waxaan dalbanaynaa ay yiraahdeen in dhammaanba cafis loo fidiyo ardadii arrintan amaba la ganaaxay amaba la xiray dhammaanba ardadaas inaan wax dacwada loo raacanin ganaaxii jaamacadaha laga ganaaxay in laga cafiyo isla markaana ardadaas ay noqdaan kuwa kale si dib ugu soo laabta oo dalbada waxay sheegeen inay hadda wali taageerayaan ardada mudaharaadka sameeyay iyagu ma geli karaan jaamacaddii waa laga ganaaxay oo gudaha hadda ma geli karaan jaamacaddii maadaama qaar kamid ah qolalkii laga xirtay waxay tiri waan dhiirigelinaynaa waana taageeraynaa ardada wali mudaharaadka sii wada oo waliba hadda maalinta ka dambaysa sida ay sheegeen ay ardada sii kordhaysa mudaharaadka sameynaysa oo tendooyinka ka sameysanaya banaanka jaamacadda Columbia arrintaasina waan taageeraynaa yiri inkastoo wali anagu hadda aan tagi karin wali taageeradan waan u muujinaynaa marka saddexdaas qodob ayaan jaamacadda ka dalbanaynaa ayay leeyihiin sidoo kalena ardadu press release oo saxaafadeed ayay soo saareen waxaana sidoo kale ay yiraahdeen jaamacadda Columbia waxa ay doonaysaa in aan la taageero amaba la rumaysto in ay ka hortagayaan xasuuqa ay Falastiiniyiinta lagu hayo iyagoo waliba iyaguna lacag ku bixinaya in ka badan konton arday oo jaamacadda gabadha Ilhaan ay dhigato college-ka ay dhigato oo la yiraahdo Barnard College in ka badan konton arday ayaa la ganaaxay halka jaamacadda Columbia in ka badan 30 arday ayaana la ganaaxay oo laga joojiyay galaasyadooda inaysan qaadan karin qaarkoodna waxaa laga xirtay qolalkii ay seexanayeen cuntadiina sidoo kalena ay jaamacadda ka cunayeen waa loo diiday marka ardaduna waxay leeyihiin waxaan dalbanaynaa cadaalad marka Ilhaan Umar sidoo kale gabadheeda waa ay taageertay qoraal ay bartay Twitter-ka ay ku soo qortay waxay tiri waan ku faanayaa gabadheeda Isra talaabada ay u qaaday in ay bedesho waxa aysan u adkeysan karin arrintaasna waxay tahay sababta ay wadankan ay hadalka xorriyadda hadalku ay uga jirto marka Ilhaan gabadheeda waa ay taageertay sidoo kale yara xubnaha kale da squad oo ay ku jira aqalka wakiilada oo Ilhaan ay xiriir ka dhow leeyihiin oo squad loo bixiyo Ilhaan waa ay ku taageereen arrintaasi gabadheeda in ay arrintaasi ay sameysay waa gabar activist ah oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo gabadha Ilhaan ay dhashay oo Isra isla markaana waxa ay qayb ka ahayd dadkii mudaharaadkan soo abaabulay lagu taageerayo oo lagu garab istaagayo Falastiiniyiinta waxaana ay sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa iyo jaamacaddu ay ka cadaynayso lacagahaasi halka ay ku bixinayso isla markaana ay joojinayso ururada iyo shirkadaha waaweyn ee kambaniyada taageera dowladda Israa'iil oo lacagta siiya lacagtaasina ay sheegeen in looga qayb qaadanayo xasuuqa shacabka Falastiiniyiinta marka gabadha Ilhaan waa la soo daayay walow hadda wali jaamacadda ay ka ganaaxan tahay waxay sheegtay heerinka inay hadda sugayso xilliga taariikhda la dhageysan doono kiiskooda amaba dacwadooda ay ka gudbiyeen jaamacadda oo ah in laga ganaaxo waxayna sheegeen jaamacaddu sharciga iyadoo ay samaysay inay ku xadgudubto isla markaana aysan jirin wax cad oo muuqda oo naloo sheegay inaan galaasadeeni aanan sii wadan karin oo jaamacaddii aanan tagi karin aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo